odayaasha waxgaradka iyo shacabka ku dhaqan degmada Nasiyo ka tirsan gobolka Togdheer ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay gudoomiyaha degmada Nasiye Daahir Xaaji Xasan kaasoo ay sheegeen tan iyo intii loo soo magacaabay degmadaasi ay dubadhuc ballaaran ku habsatay degmada Nasiye isla markaana ay xidhan yihiin meelihii loogu adeegi lahaa shacabka ku dhaqan degmada Nasiye kana maqan yihiin baahiyaha asaasiga ee deegaankaasi odayaashan iyo waxgaradkan degmada Nasiye ayaa waxay baaqay la dhaana u direen barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxaanay codsadeen in si degdeg ah wax looga qabto cabashadaasi ka soo yeedhay shacabka ku dhaqan degmada Nasiye gobolka Togdheer sidoo kale waxay eedo u soo jeediyeen mid ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka degmada Nasiye ka soo jeeda oo xukuumadda xilalka haya isla markaana degmada Nasiye ka faafiyay warar been abuur ah odayaasha iyo waxgaradka degmada Nasiye cabashadaasi ka hadlaya waxaana ka mid ah hadaladoodii magaaladii intuu hayay saddex baabuur buuxii waftaan saddex oo fariisteen aftaajku fadhiya dawlad laga waa xabad kaarjibaan ku soo yeelmaan wato xafiisyadii la gali jiray magaalada wax lagu soo qaadi jiray lagu gali jiray meel laga gali jiray waxba loogama soo qaado magaalada sanadka waxla 12 bilood sanad waxla buu haystay sanad waxla ayuu daareeyay magaalada waxaan maalay haddaan dambiga iska ilaaliyo inta uu horeeyay magaalada joogay inaan hadii la tiriyo la bood noqonin marka waxa weeye uu noo yimaado uu tagaa waa ninka barcada hoygiisa ay tahay guriga dadweynaha guriga dawladda hoose dhisana laba suuq uu qodayo qandaraas laga qaatay qandaraaskii buu lagu leeyahay wax kale oo wax qabada oo aan anigu maanta waa garanayo waa miyaa garan karayso wax kale barasaabka gobolka kelmad baan leh bulsho bixi kelmad baan leh oo muuso waxaan maalintii lagu dooranayay degmada Nasiye aan maanta ka hadlaynaa waa meeshii sida qiimaha ay ku soo dhaweynay Nasiye degmada Nasiye iyo jeefilay Hargeysa oo isbayn marka madaxweyne waxa uu leenahay inaad maanta naga bedesho Daahir Xaaji Xasan wax qabadkiisii waa soo dhameynay Xaaji Xasan baan koobanay ka weynay inaad naga bedesho Maxamed Axmed Kaahin waxa leeyahay maxamed magaalada degmada waa degmadaadii haday xumaato adiga waxba ka xumaanaya walaal la siyaabata ninkani lama qancin ninkani Maxamed Kaahin oo ninkani nin qanciyay noqon waa degmada Nasiye waxa weeye waxay maanta isugu soo baxday ee ay shucuurta iyo ka cabanayso laan ayaan ku dhaliilaynaa kii bilayska u fadhiya hadii ay xugmaayo way muuqataa wax la taaban karo oo dadku arko oo dadweynuhu arko oo dawladdu aragto oo aan maanta de waxa weeye wax laga indhaqarsada ahayn ayaa muuqda ninkii de ka indhaqarsanaya waa meesheeda dadka shacabka ee danaysan ee waxa weeye u baahan laga bedelo wixii maanta aan shaqeynin wasaaradii kaliya ma shaqeyso magaalada waxaan leenahay oo aan maanta leenahay in wax laga qabto oo si dhaqso ah wax looga bedelo ninka qabsaday afar foosto suuqa looga taagay khashinka lagu ururiyay markii khashinka lagu ururiyayna awal markii hore dad malaaguna qaataa de guri jiro ka qaadi jiro godka ku daafada geyn jiray tiina waa laga gooyay bay yiraahdeen oo bixi halkii baa lagu daayay roobkuna waa ku daay in xanuun ka dilaacaan bay halis tahay xagga magaalada markii odayga hore haystay godka khashinka meel ka sokaysa waxba lagu qobi jirin imankana suuqay soo gashay hadda dumarkan loo diraayo marba ururiyo dadka waxa la guri karaa magaalada wax ka bedeladkeedu imanka de dawladdu u yaala xusbil xaakimku u yaala kulmiyu u yaala iyagaana aanu kala hadlaynaa waxaanu leenahay hadday barasaab degmo tahay hadday wasiirka arrimaha gudaha tahay Maxamed Kaahin Axmed wasiir mudane waxaanu codsanaynaa magaaladu waa magaaladaadii wanaaga waa nagu matashaa annaguna waa kugu matalaa haddaanu nahay reer Nasiye kulmiyaanu nahay haddaanu kulmiyanahay codkaagu adigu diyaar ku ahaa waxaanu leenahay haddii ilaahay ka dhigo adaana ku sugaynaa arrinka hoos u eeg arrinkaga si uu noqon hal bacad lagu lisay hoos u eeg halka wax ka qabo wuxuu naga qaban karto naga qabo ilaa heer madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan u soo gudbinaynaa magaaladaasi waxyaabaha ay aasaas ka dhan aad bay uga waxaysan yihiin waxuu nagu ballamay inuu sarfayga ka saaraya lama hayo xashiishkii bacaadada yaala oo baraaga maanta nagu xaroonaya oo xanuunada laga liqaya bahalay uu loo qoqotomiya wala buuxa oo fatahay oo hadii ay kada saxaxuma baan diiq lanahay magaalada kabku baa lagu qaataa dibadna mooyee meel ay tahay dibna looma soo eego
waxaanu leenahay oo dowladda aanu leenahay oo wasiirka arrimaha gudaha aanu leenahay mudane hoos eeg inanka jendheerka ah ee magaalada wax ka sheegay ee yidhi waa la isku dilayaa haddii arrinkaa la farageliyo waxaanu leenahay annagaa le magaalada ha la hagaajo annagaa le waxa laga bedelo annagaa le toosiya waxaa tii waa la isku dilayaa ninka lagu dilayow dee sidaada noogu kaalay waxaanu leenahay magaalo aanad arkin oo aanad iman oo aanad waxba ka ogeyn inaad wax ka faallaysaa aad bay kuugu khalad tahay aad bay khalad kuugu tahay waxaanaanu leenahay waxa nalala arko waxaana ha naloo qabto intii ma garanaysaa ninkaa odayga ahay magaalada joogay wax danaha oo magaalada soo geliyay ma jirto wax ma garanaysaa wixii loogu talagalay magaalada ee gobolada iyo waxa ka midna maartay waa ka maqan dawladda waxaan leenahay dee wixii hawlaha ma garanaysaa meesha yaala dee wax laga qabto daahir magaalada wuxuu yeelo ka cuno mooyaan wax alle wuxuu kordhiyay ma jirto runtii marka la sheego hadalka runtii haddaan laga sheegin ma heshiiyo rag ilaa afar ka buu qaatay waxa la magaalada wuxuu ku soo kordhiyay wuxuu yeelo mooyaan lama arag dadka masaakiinta degan raashinkii u yimi ee ama dawlad ha ka yimaadeen ama hay'ad ha keentee 20 gabdhood uu ka keenay intii kalena wuu tashaday ilaa 130 uu ah wuu cunay magaalada wuxuu qabtay wuu cuno masaakiintii baqtiyeysay ee haddii alla ka dhigayo hay'ad ugu soo tala galeen ayuu wuxoodii u tashaday magaaladu 95% bay hoos u dhacday waxaana hoos u riday ninka la keenay Daahir Xaaji Xasan waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha iyo barasaafka gobolka Togdheer iyo madaxweynaha Muuse Biixi magaaladu waxay ku xeel dheer tahay calanka kulmiye waa kulmiye magaaladu waa kulmiye codkii kulmiye laga helay waad haysaa waxaan leeyahay haddii maanta taa laga wax qaban waayo siyaasadu si kale isku guracaano waxa weeye dad xisbadu way farbadan yihiin wax dhibaato ka jira ma jiraan wax qabiilo isku haysta ma jiraan mid wasaaradda arrimaha gudaha tirina kaasina been buu ka sheegay qof uu urxin ma jiro halkan waxa wada fadhiya 8 qowmiyadood baa wada fadhiya 8 beelood kala jaada wareed Soomaaliland waxaan leeyahay haddii maanta doorasho ka dhacdo waan doonaynaa mid dadka cadaaladda xukuma oo laga bedelo baan doonaynaa wax kale ma soo fadhino shaashaan doonaynaa ayaa la ciga ducaale Bukhari sahan TV degmada Nasiye gobolka Togdheer